قال كعيو وين سلامي إنا ندم كوي ماذو قرونكي محمد عوالة الليبان وأهل يجي علن كصوماليات ومالين تاريخية وكما سنتين شعب كارير قال كعيو وحنوغ مهد علينا يا سو دوين تديرن ay nagu soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ayaad mudantiin xalayto ayuu igu yiri madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo mar haddii aad puntland timid waxaad u timid shacabkii ugu dawlad jeclaa dalka Soomaaliya waxaad ku jirtaa gacan wanaagsan labadaydii gacmood ay geestii waqooyay gaalkacyoy ma nabad ba geesiyaal la magac dhabo geygii lagu yaqaano gaalkacyoy ma nabad ba halgankii gumaysiga gobonnimo udirirka dhulkii lagu yaqaano gaalkacyoy ma nabad ba gurigii cilmiga iyo diinta lagu gudbinayay ruuxday gogoshu taalaaye gaalkacyoy ma nabad ba ra'iisul wasaare geesiya cabdirasaaq xaaji xuseen geyigii uu ka yimid mudugay ma nabad ba gaalkacyoy salaan naga guddooma nabad naga guddooma midnimo naga guddooma farxad naga guddooma gacan furo naga guddooma dawladnimo naga guddooma dhallinyarada Soomaaliyeed oo halkan ugu soo dhaweysay oo maanta dhan halkan taagneed waa mahadsantiin waxaan idinkugu bishaaraynayaa in garoonkan la idin dhisi doono la idinkaga dhigi doono sida aad rabtaan haddii ilaa yidhaahdo shacabka iyo dawladdu waa wadnihii iyo beerka qofka bini aadanka lama kala qaadi karo shacabka iyo dawladda dawlad aan shacab lahayna shacab ma aha shacab aan dawlad lahayna dawlad ma aha waa ku mahadsantihiin gaalkacyoy inaad idinku muujiseen tusaalahaas aan hore loo arkin waxaan rabaa dhallinyarada halkan joogta dadkii Soomaaliyeed ee ficiina ahaa ee dhaliyay gobonnimada kuwii dhallinyarada ahaa ee ku jira SYL inta ugu badan waxay ka soo jeedeen gobolka mudug gobonnimadii ay dhaliyeen waxaa la rabaa idinku inaad sii wadaan Soomaalinimada idinkaa la rabaa inaad ogtaan idinkaa la rabaa inaad horumarisaan waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan idin sheego inaan maanta taagannahay isbartiibadii loogu magac daray halyeygii calanka heestii calankana laga tumaayo halkan waa dhiiggii Soomaalinimada waa mahadsanteen waxaan rabaa inaan idin sheego sanadku markuu ahaa 1948 waxaa jiray laba wiil oo Soomaali ah oo idinka da'diin oo kala ah waxaan rabaa inaad si fiican u dhagaysataan labadaas wiil waxaa la kala oran jiray Cabdullaahi Ciise iyo Maxamuud Yuusuf Muure Allah u naxariisto Cabdullaahina Allah u naxariisto labadaasuba waxay ka soo jeedaan deegaanadan aad degantiin
1948 markii qaramada midoobay ay yidhaahdeen soomaaliya qofa soo dirsato uga hadla halgankeeda gobonnimo doonka talyaanigii halkan jooga wakhtigaas waxay yidhaahdeen maadaama aad cabdullaahi ciise dirsanaysaan waa in cirbad lagu duraa muuro allah u naxariistee oo cabdullaahi ciise u eka waxa uu yidhi inta adiga lagu duri lahaa oo sun lagugu duri lahaa anigaa naftayda hibaynaya waxaan rabaa aniga in lay duro markii la duray allah u naxariistee muuro cabdullaahi sidaas ayuu fiisaha ku qaatay sidaas ayuu u tegey qaramada midoobey sidaas ayuu uga soo hadlay xorriyaddii sidaas ayay xorriyaddii ku timid waxaan rabaa inaan idiin sheego marka fikirka ah muuro iyo cabdullaahi isku qabiil ma ahayn midna wuxuu ka soo jeeday waqooyiga gaalkacyo midna koonfurta gaalkacyo haddii qabiil uu wax taraayo mid baa wuxuu yidhi kan kale ka qabiila anigaa naftayda adiga kuu qadimaya si adigu aad u waddo xorriyaddaas su'aasha la rabo maanta in la isweyddiiyo waxay tahay xorriyaddii wiilashaasi ay u dhinteen ammaanadii ay idiin dhiibeen reer gaalkacyo xaggee bay ku dambaysay laguma hayn karo soomaali kala qaybsan laguma hayn karo soomaali xuduudyo kale leh sababtoo ah waxay nooga tageen taariikha in quluubta shacabka soomaaliyeed marna aanay xuduud kala yeelan karin ammaanadii la idiin dhiibay soomaalinimadii dhallinyaranimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka ahaayo diyaar ma u tihiin soomaaliya midaysan soomaaliya sharaf leh soomaaliya xooggan soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay gobonnimada gaalkacyaa hormuud aheeda hormuudka ma qaadanaysaan qabyaaladda ma ku beddelaynaa qarannimo musuq maasuqa ma ku beddelaynaa iimaan iyo sharaf reer gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idiin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay soomaaliya waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taagannaha gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dawladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dawladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb in laga qoro caabudwaaq in laga qoro xeraale in laga qoro hurshe in laga qoro barambal idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan dawladdiinnuna diyaaray u tahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo reer gaalkacyo waqooyi iyo koonfurba waa soomaali aan la kala qaadi karin ilaahay ha idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu